الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdixakiin Cusmaan Nuur oo degan state of Minnesota magaalada Minneapolis waxaan halkan u imay inaan galabta ku mudaharaado gacan ku dhigil Xasan Shekh Maxamud oo lagu magacaabay inuu yahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ma aha waa ogtihiin waxa uu sameeyay sanadihii ugu dambeeyay uu xilka hayay waxa uu dilay baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed waxa lagu laayay dadkii caasimadda magaalada wadada Makka al-Mukarrama oo ah faras magaalada oo dawladdu ka taliso waxa la dilay xildhibaan Saad Cali waad aragtaan dhabarkayga waxa ku yaala dhamaan xildhibaanadii uu dilay ee Soomaaliyeed waxa magaalada Muqdisho ku nool the most wanted of the United States waa Sheikh Xasan Daahir waa nin al-shabaab ka tirsana oo America most wanted waa nin al-qaacida taageeraya marka maxay ku kala duwan yihiin Xasan Sheekh Maxamuud dareenkayga waxaan galabta ku muujinayaa xataa waxaan ku mudaharaaday iyadoo ay winter tahay oo ay qabow tahay oo jaakad yar gashanay ama wheelchair saaran maanta iyadoo ay summer tahay oo uu laayay xildhibaanadii Soomaaliyeed kuwoodii ugu magac weynaa yaanu Xasan iga filayn inaan ku soo dhaweey magaalada Minneapolis dadkii Soomaaliyeed buu cunay dadkii Soomaaliyeed buu laayay caasimadii maalin walba lagu dilay xildhibaanadii Soomaaliyeed federaalkii buu kala goynaya midnimada Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ma rabo gobolada waqooyi markii uu la xajoonay maamulka la magac baxay Soomaaliland Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu la xajooday qabiil kaliya lamuusan xajoon qabiiladii waqooyi tagay oo dhan special qabiiladii taageeraya midnimada Soomaaliyeed taas waxaan u arkay Xasan Sheekh Maxamuud inay ku jirto colaad dad khaas ah marka adduunka waxaan u sheegaynaa inaanu Xasan galabta ku mudaharaadano markastuu yimaadana aanu saa ugu mudaharaadano. We need somebody